وحاسي habsamiya loo soo gabagabeeyay tartankii xifdiga quraanka kariimka ah ee bisha Ramadaan ee magaalada Boorama munaasabada tartankan quraanka lagu soo gabagabeeyay ayaa waxa ay ka dhacday masjid jaamaca qadiimka ah ee bartamaha magaalada Boorama waxaana goob joog u ahaa dadweyne aad u tiro badan sheekul baladka magaalada Boorama gudoomiye ku xigeenka waxbarashada iyo qaar kamid ah culimada diinka magaalada Boorama tartankan oo ahaa kii lixaad ee xifdiga quraanka kariimka ah ee magaalada Boorama ayaa Sheekh Cali Aadan Nuur oo ah gudoomiyaha tartankan uu ka warramay inta ay dhanaayeen tartamayaasha ka qayb qaatay sida fiican marka soo maartay habeeyay oo ardayda marka soo kala saaray oo aan daacadnimo iyo ikhlaas aan ku xulanay oo aan shuruud u dhignay shuruudaasna ay tahay inaan taxkiimka dadnada kala saaraysa ardayda ama musaabaqada iyadoo wax weeye u xilsaaran tartanka qaadaysa inaan arday ku jirin macallin madaariska musaabaqada ka qayb qaadanaya macallin ka mid ku jirin sidoo kale ayaa sheekul baladka magaalada Boorama Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar waxa uu isaguna ka warramay ahmiyada uu leeyahay tartanka quraanka kariimka dhammaan hadaa ay ragga calaamta islaamka hadaa ay ragga ugu horeeya waa quraanka iyo xifdiga cilmigu ma badilo haduu nin quraanka xifdiyo cilmiga ilaahay ma badilo mar haduu quraanka qof halka la joogo jiro xifdiyo kuwa dhimaayo cilmiga carabiga ku dhimaayo cilmi fiqh ku dhimaayo الحديث والعلوم وكل ما الفقه والأصول وكل ما وحكى الطبيعة وحكى الطبيعة سبحانه وتعالى كبرنا إلى نقطان حملة الشريعة الإسلامية في المستقبل. gabagabadii madashan ayaa waxa halkaasi lagu gudoonsiiyay 16 qof oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ku kala guuleystay kalimaha koowaad iyo labaad ee heerarka kala duwan ee tartankaasi ka koobnaa waxaana la gudoonsiiyay abaalmarino lacageed shahaadooyin iyo kutub quraanka kariimka si kastaba ahaatee tartankan lixaad ee quraanka kariimka ah ee magaalada Boorama ayaa sanadkan waxa uu ahaa mid xiiso gaar ah leh kaasina ay sababtay in dhageysigiisa ay soo jiitaan dadweyne aad u tiro badan عبد الله علي يوسف هون كيبل تي في مقالة بورما.